waayahay xiisad xooggan ayaa weli ka taagan gudaha Puntland gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada Rakarraaxo oo ka tirsan gobolka Bari. waxaan idinla wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ciidamo aad u xooggan ka dajiyay deegaanadaasi hoos yimaada degmadaasi Rakarraaxo oo ay ku sugnaayeen maalmihii ugu dambeeyay ciidamo taabacsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ka guuray degmada Carmo. isimada dhaqanka beelaha deegaanadaasi dego ayaa iyagana soo saaray war-saxaafadeed iyagoo uga digay dhaqdhaqaaqyada Deni uu halkaasi ka wado in ay keeni karaan cawaaqib xumo isla markaana ku tilmaamay in hubka iyo ciidanka halka ku sugan ee dowladda federaalka taabacsan ay yihiin kuwo beelaha deegaankaasi degan ay leeyihiin isla markaana aysan marna aqbalaynin in ay isa soo dhiibaan oo hubkaasi la bililaqaysto sidii kii lagu bililaqaystay degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay guud ahaan Puntland ismariwaaga siyaasadeed ee dhinaca dowladda federaalka, dhinaca Puntland isimada dhaqanka ama beelaha Puntland, ciidamadii kala duwanaa ee gudaha Puntland ku sugnaa iyo xogihii ugu dambeeyay dhowrkii maalin ee la soo dhaafay ayaa muuqaalkan ku qaadaa dhigi doona hadduu alla idmo. idinkuna soo dhawaada aragtidiina igula wadaaga qaybta commentiga. aan ku bilaabay weli dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee iska soo horjeeday way ku sugan yihiin gudaha Puntland walow meelihii ugu adkaa dulduleelada uu Deni soo xidhay weliba gaar ahaan dhinaca Gaalkacyo guulna ay ka raacday weerarkii uu ku qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. weli se ma soo afjarmin oo weli dhaqdhaqaaqyadu iyo weliba kala aragti duwanaanta siyaasadeed gudaha Puntland way ka taagan tahay. 24 saac ee la soo dhaafay meelaha ugu hadal haynta badan waxaa ka mid ah degmadaasi Rakarraaxo oo ka tirsan gobolka Bari isla markaana ay ku sugnaayeen asbuucii ugu dambeeyay ama dhowrkii maalin ee ugu dambeeyayba ciidamo ka guuray degmada Carmo isla markaana taageersan dowladda federaalka Soomaaliya sida isimada dhaqanka deegaankaasi ay sheegeen ah ciidan beeleed dowladda federaalka taageersan hubka ay wataana beesha halkaasi degto ay leedahay. isimada dhaqanka ee beesha Cali Saleeman ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay ku sheegeen in ciidankaasi aysan isku dhiibaynin Deni hubkiisana hubka ay wataana uusan gacantooda galaynin hub beesha ay leedahay oo iyagu ay si gaar ah u leeyihiin ay tahay gacanta ku socota ama gacanta Denina aysan aaminsanayn hubkaana aysan marna u dhiibayn. waxaa kaleeto ay xuseen in gacan aamina oo maanta Puntland haysata oo hubka dhigis dadka reer Puntland oo dhan lagu sameeyo loo dhiibo inaysan hadda jirin ayna aaminsanayn kuna kalsoonayn Deni isla markaana ciidankaasi aysan marna aqbalaynin in weerar lagu qaado. haddii waxay sheegeen uu Deni joojin waayo faragelinta iyo weliba dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo dagaalka uu doonayo inuu ku qaadana ay cawaaqib xumo xooggan ka dhalan karto. waxay dhanka kaleeto xuseen in Puntland lagu aas-aasay beelo isla markaana ay ahaayeen beelo isku yimid Puntland aas-aastay nidaam dejistay in ay beel kale ku duushana marna aysan wax la aqbali karo aysan ahayn taasoo markaasi ka dhigan in Deni markaasi loo arkay inuu yahay nin beel hogaaminaya beelo kalena duulaan ku ah. waxaa intaas sii dheer ciidamada halkaasi ku sugan ee dhinaca dowladda federaalka taageersan waxay heleen gurmadyo dhinacyo kala duwan uga yimid iyaga naftirkooda 24 saac ee la soo dhaafay ciidamo aad fara badan ayaa halkaasi gaaray sida ay wararku tilmaamayaan. waxa ayna sheegeen in waxaan dagaal ahayn aysan ku qancaynin. Saciid Cabdullaahi Deni ayaa dhowr jeer oo horeba erga u soo diray waxa uu sidoo kale ku soo rogay awaamiir in ay soo dhiibaan oo saacado ah dhammaan intaasba way ka dhiga adeegeen oo waxba natiijo ah kama dhalanin. ugu dambeynna saansaantii muuqatay ee saacadaha hadda la soo dhaafay waxay u egtahay in ciidamadu ay isfara saari karaan iyagoo weliba ciidankaasi dowladda taageersan dowladda federaalka taageersan ay soo bandhigeen muuqaalo iyagoo buuraha fananahaya. Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xalayto ciidan aad iyo aad u xooggan gaarsiiyey degmadaasi Rakarraaxo oo deegaano dhowr oo kur ilaali iyo ilaa iyo dhowr deegaan oo degmadaasi hoos yimaada ay ciidamada dowladda federaalka ay ku sugan yihiin. waxaana ay wararku tilmaamayaan in Deni uu amray
in weerar lagu soo afjaro ciidankaasi taageersan dowladda federaalka Soomaaliya. ciidamo aad iyo aad u fara badan ayay dadku deegaanku ay sheegeen in ilaa iyo xalayto ay halkaasi soo gaadheen oo inta badan dhinaca Dani ka yimaanaya ama Dani uu soo diray dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan iyo walaac amni darro ayaana dadka deegaanka ee deegaanadaasi degan ay ka qabaan. ciidanka dowladda federaalka taageersan waxay ka guureen dhowr maalin ka hor degmada Carmo kadib markii ciidamo Puntland ka socdo oo Saciid Cabdullaahi Tani taageersan ay halkaasi gaadheen iyagoo markaasi shacabka u danaynaya ayay dhinaca fog ee gobolka Bari ee xuduudda oo deegaanadan hadda aynu ka hadlaynaa ay u guureen. halkaas ayayna dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen iyagoo waliba warbaahinta u sheegay in wax dagaal iyagu aysan u soconin diyaar aysan u ahayn gudaha Puntland ee dagaal ku galaan ama dadka reer Puntland lagu dhex dagaalamo. sababaha ay uga soo guureen degmada Carmana ay sidaasi ahayd. hase ahaatee Dani ayaa sheegay in uusan marna aqbalaynin aragti siyaasadeed oo isaga ka duwan oo Puntland gudaheeda ku sugan ama ciidan federaal sheegta oo markaasi aan ahayn ama ciidan qori wata oo markaasi aan ahayn midka isaga ka amar qaata. khatar aad iyo aad u weyn ayay dadka deegaanku marka deegaankaasi ay kasoo sheegayaan isimada dhaqanka oo idil oo deegaankaasi dadka degana waxay isku raaceen inaysan marna aqbalaynin weerar lagu qaado ciidankaasi deegaankaasi degan ee dadka deegaanka ka soo jeeda dhalinyarada deegaanka ka soo jeeda. waynu eegi doonaa wixii ka soo kordhay dhinacan haddii aynu eegno Gaalkacyo dagaal maalmo ka hor dhacay ayuu Dani kula wareegay magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale saldhigyadii ciidamada ee dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnaa. Dani ayayna raacday guusha waana midda sababka u noqotay in Dani uu yiraahdo waxaan soo afjari doonaa dhammaan saldhigyada ciidamada sheegtay dowladda federaalka ee ku sugan ama ciidamada sheegtay dowladda federaalka ee ku sugan gudaha Puntland. dhinacan Boosaaso naftirkeeda dhaqdhaqaaqyo ayaa ka socda walow saldhigii ugu weynaa ciidamada BSF oo base u ahaa ciidankaasi muddo dheer ay la wareegeen ciidamada taabacsan Saciid Cabdullaahi Dani. haddana ciidanka BSF naftirkoodu wali kama aysan dhammaanin magaalada Gaalkacyo ama magaalada Andhehe Boosaaso oo agagaarkeeda ciidamo ayaa dhaqdhaqaaqyo ka wada. dhinacan haddii aynu eegno Garowe wali wax safgarad iyo heshiis lagama gaadhin ciidamadii dowladda federaalka taageersanaa ee ku sugnaa halkaasi. wadahadallo ayaa la sheegay inay dhex mareen Dani iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidankaasi kumandoska Danam. hase ahaatee natiijo rasmi ah oo la shaaciyay oo dhinacyadu ay markaasi ku heshiiyeen ma jirto waxaan ahayn in ergo ay u kala dabqaadaysa dhinacyada. dowladda federaalka Soomaaliya wali kama aysan hadlin ciidamada ku sugan gudaha Puntland markii laga reebo in dhowr asbuuc ka hor madaxda ugu sareysa dowladda oo ra'iisul wasaaruhu kow ka yahay sheegeen in Puntland ay ka mid tahay dowladda federaalka isla markaana ay xaq u leeyihiin intay doonaan oo ciidana inay ka qortaan. tan iyo intii weerarkan uu dhacay dhinaca dowladda federaalku faahfaahin rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo oo la xidhiidha qorshayaasheeda ku aadan ciidamada taabacsan iyada dowladda federaalka ee ku sugan gudaha Puntland ma jiro. dhaqdhaqaaqyada ciidan ee iska soo horjeedana wali waa socdaan. dhinacan haddii aynu eegno Galdogob iyagana waxaa ku sugan ciidamo aad u fara badan oo dowladda federaalka Soomaaliya taageersan. dhinaca ilaa iyo haddana wax isafgarada oo Dani ay la galeen ma jiro. wali taasi waxay marka ka dhigan tahay in ciidamo aad u fara badan oo dowladda federaalka taabacsan oo ka soo horjeeda nidaamka siyaasadeed ee Dani inay wali ku sugan yihiin gudaha Puntland. Saciid Cabdullaahi Danina uu la dhacayo sidii uu u soo afjari lahaa ciidamadaasi qayb uu wada hadal ku soo xirageliyo iyo sidoo kale qayb uu dagaal ku qaadaba. waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muuqaaladina dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu Alle